runtii de ilaahay horta ma hadle halkan isugu keenay maanta inagoo nabadgelyo ah oo u socono shaqada caadiga ahayd horta marka koobaad dadweynihiinan ku dhaqan degmadan Agabar waxaan idinka mahad celinaynaa runtii soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee diiranayd ee gacaltooyada ka muuqatay aad nagu soo dhaweyseen ajarkeedii xasanaadkeedna waxaan leeyahay ilaahay idin laban laabo annagu kulli waxaan u soconay wax waajibnu lu ku leeyahay oo aan ku khasbannahay oo shaqadeeda ah oo ah shaqada aan u hayno shacabka ku dhaqan guud ahaan gobolka Gabiley iyo gaar ahaan socodkan maanta oo u gaar ahaa degmada Agabar runtii inaan xogaal u noqono xaaladaha ka jira iyo baahiyaha iyo wixii ay dadku dareemayaan iyo waxay tahayba socodkayga saad ku aragtaanba waxaan soo kaxaynay oo nagu heliya xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Gabiley oo runtii saldhig u ah guud ahaanba gobolka Gabiley oo iyaga laga doortay oo horena idinku yimidna baahiyaha deegaanka ay ogaadaan wasaaradihii muhiimka ahaa iyo wasaarada kale oo aan runtii shaqooyin ku maqnaa haday noqoto wasaaradda waxbarashada oo ah halka ugu mudan idinkuna hadda cabashadiina iyo dareenkiina uu taabanayay wasaaradda caafimaadka waa meelaha ugu muhiimsan runtii balanqaadyadeeda iyo inay ogaato waxa Agabar ka jira wasaaradda beeraha maadaama deegaankan uu yahay gobol beera ah runtii isduuyo xanaanada xoolaha nala socda oo iyaduna ah in deegaankan uu yahay deegaan xoolaleeya oo isaguna runtii waqtiga ku jira kii keedka raashinka nala socda haddii abaariyo wax dhacaan iyo aafooyinka ilaahay naga hayay iyo qorsheyntii marka runtii safarkan muhiimadda gaarka uu leeyahay waa safar loo dhan yahay taliye-ku-xigeenka qaybta booliska nala socda runtii isaguna inuu xaaladda ammaanka iyo wax walba marka qolo walba inay waxeeda xambaarato baan horta u wadnay idinkuna ku mahadsantiin inaad runtii maadaama idin nimid safar idinku nimid oo safarkaas oo xogaal u noqosho inaan ogaano saad ogtiin ba Soomaaliland oo dhan horta de wadankeena wali itraaf muu helin baahiyo badan dadku dareemay haday dhab tahay iyo haday horumar kale tahayba wax bay nagala maqan laakiin sida cali sheegayo aniga bari waa laga soo bedelayo deegaanada barigu waxay xantaan idinka gobolka cagaar baa la xantaa oo waxa la yiraahdaa wax walba halkaas la geeyaa runtii idinkana way arkaa marka waxa oran kartaa Soomaaliland meel joogto isku duruuf taana way idinka wargeenaynaa in dadku isku duruuf yahay oo tuhunka badan ee laga qabo haday sida la sheegayo runtii dawladnimada waxa la isku haystaaba waa meesha ugu sareysay meesha gacantiina ku jirta runtii dhamaanteena waxaan mas'uuliyad inaga saaran tahay inaan shacabkeena u dadaalno wax u qabanno idinkana waxba xaq leeyahay idinku leeyahay anagana waxba xaq noo ku leeyahay iskuulka mar hadaad dhisteen idinku runtii oo qalbeyntiisina golaha deegaanka iyo degmada Gabiley ay balan qaaday isduuhii waxbarashaduna uu joogo runtii dawladdu kulli way kala wareegi doontaa laakiin inta la kala wareegayo idinka waxa la rabaa inaad adkaysataan ku sintaan inta calna way idin raaciyo kulli taajirnimadan xaqiina soo jirtaa soo sheegayo marka inta inaad nagu sintaan oo jeclaan lahayn runtii si dawladdu si buuxda ay ula wareegto dhamaanteena socodkana ma noqon doono kulli kii u dambeeyay waxaan jeclahay inaan isku soo noqono marar badan annagoo waliba xaaladahaas aan sheegnay oo dhan iyadoo laga soo jawaabay oo jawaabahoodu ama naga soo horeeyaan ama aan wadno in aanu isugu nimaadno maanta guriga degmadan taaganahay bilis laga caban maayo Tombalanka magaaladiina iyadoo magaalo yar oo waliba aan caasimad weyn ahayn magaalooyinka weyn ee Soomaaliland baan qaarkood helin in wadooyin loo sameeyo Tombaland oo maalmo idaacadaha wad dhageystaane wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda ku canaananaya waxaan ugu sameeyay marka waa ilbaxnimada dadka dheertihiin in maanta Agabaro degmo ah runtii loo sameeyo iyadan caasimad weyn oo dalka aan helin inay saan noqoto marka runtii mashruuc weyn oo iyadana ma soo maray aad ka faa'iideysan doontaan oo sheekhaasi agaasimay ka ahaa runtii uu waday oo markas weyn oo halka la idinka dhisayo markaasna wuxuu muhiim u yahay dad badan oo aan idinka ahayn ba imaan doona saan ku rajo weynahay oo quraanka ku xafidi doono oo runtii boodhan weyn oo dadka lagu xareyn doono marka waxaas oo dhan waa horumar marka inagu horumarka u baan isu kaashan doonaa haddii alla idmo wixii ribooda iyo warbixin ah deegaankan leeyahay dhamaantood iyo wixii aad tabaysaan wixii aad ka tagteenba gudoomiye degmo idin joogo wuxuu kilka yahay dawladda isaga ku soo ururinaysan isaguna iyadoo qoraal ah
oo dhammaystiran buu noo soo gudbin saasaynu insha allah dee isku ogaanaynaa insha allah laba talaba tirno ilaahayna waafajiyo aad baan idin salaamayaa